kulan wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa qisada lamaana reer Masar ah oo noloshooda inta ugu badan ku soo qaatay farxad balse dhamaadkii la kulmay murugo dadkii maqlay ku reebtay oo ku taalo iyo dareen xanuun badan Maryama iyo Badri oo ku noolaa magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa lahaa xiriir qoto dheer oo ka soo bilowday dugsiga sare socodayna ilaa jaamacadda wuxuu ahaa xiriir lamaane kan ugu qiimaha badan inta isku taqaana waxay ahaayeen kuwa looga daydo jacaylka dhabta ah qalbiye isjecel oo haysta farxad kalsooni iyo waqtigii ugu fiicnaa ayay ahaayeen laakiin jacaylkoodii darbiga ahaa waxaa soo dumiyay mawjado murugo ah waxaana Badri iyo Maryama u bilowday murugo mugdi gelisay maalmihii muunada lahay Badri wuxuu galay safar dhulka ah oo uga ambabaxay caasimadda Masar ee Qaahira wuxuuna aaday gobolka Sinai intii uu wadada ku sii socday ayuu la kulmay shil culus waxaana gaariga uu watay dul maray gaari weyn oo ah kuwa xamuulka qaada Maryama oo jacaylkeedii aan dhowr saacadood la hadal ayaa bilowday wicitaan balse telefoonkii uu iska dhacaya cidina kama qabanayso in ka badan 100 jeer ay wacday sidoo kalena 50 fariimo ah ay u dirtay balse wali wax jawaab ah ma helin ugu dambeyntii way carootay waxayna qortay fariin ay ugu sheegayso jacaylkeeda Badri in ay wacday mar dambana aysan soo wici doonin waxay fariinteeda ku tiri waxaad ahayd qofka ay baray jacaylka sanado badanna aan sababtiisa ku farxi jiray maanta waad i cidlaysay waadna iga maarantay oo waa adiga mobilka iga qaban la waxaan ku leeyahay macasalaamo adduunkaba ma joogo Badri booliiska ayaa meel wadada dhinaceeda ah oo kayn ah ka helay gaarigii Badri oo burburay meydkiisana uu ku jiro halkaas ayay ka soo qaadeen waxaana la baaray mobilkiisa waxaana lagu arkay wicitaano badan iyo fariimo waxaana inta ugu badan lahayd jacaylidiisa Maryam oo uga shakisnayd inuu mobilka ku dhageysanayo waqtigaas balse wuxuu ku jiray daqiiqadihii ugu dambeeyay nolosha iyo bilowga nolosha dambe ee aakhiro Maryama waxaa gaaray fariin qalbiga dhaqaajisay waana in uu dhintay Badrigii ay jeclayd waxa ugu badan ee ay dib u gocanayso waa in jacaylkeeda isaga oo xaalad xun ku jira ay u qaadatay in uu xumaan darteed uga qaban la yahay oo waqtigaas dumar kale haasaabo kula jiro tani waxay noqotay sheeko tusaale u noqota qof walba oo maqla kuna fakara marka qof telefoonka uu ka qaban waayo in uu xumaan darteed uga jawaabi la yahay aragtidaada nala wadaag maxaa maskaxdaada ku soo dhaca marka uu qof muhiim ku ah mobilka ka jawaabi waayo fadlan muuqaalkan like saar siina share garee kuna soo biir page-kan waad mahadsantahay